caawa waxaan ku sugannahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. Addis Ababa caasimadda Itoobiya kaliya maaha sidoo kale waxa ay caasimadu tahay guud ahaan qaaradda Afrika oo dhan. maxaa yeelay halkan waxa ku yaala xarunta midowga Afrika ee loo yaqaan African Union. sidoo kale waxa xusid mudan in magaaladani dad badan oo Soomaaliya ay ka dhoofeen ilaa haatan ay weli dad kale oo Soomaaliya ka dhoofayaan. dhoof kaliya maaha ganacsiyo badan bay Soomaalidu ku leeyihiin. sidoo kale waxa xusid mudan in doorka nabadaynta oo kale Addis Ababa aad loo yimaado oo imikada aan hadlayno madax badan oo Soomaaliya ay ugu sugan yihiin arrimo nabadgeliyo iyo wada hadal khilaaf soo kala dhaxgalay dadka Soomaalida dhexdooda oo la doonayay in halkan lagu heshiisiyo magaalada Addis Ababa. waa magaalo cajiib runtii oo wadooyin iyo dhismayaal iyo horumar aad u baaxad weyn oo ka socdo. waxaa ila socda oo darawal caawino ah Maxamed oo isagu ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladan Addis Ababa isla markaana halkan wax ku bartay xaasis way u degan yihiin oo magaalada ku dhaqan bal markaa qaybaha kala duwan ee magaaladan Addis Ababa aynu soo mari doonaa daawashada safaaxada. أحمد كسودو أتسوى مقالة أتسوى واحد بدن بعان كتاهي مقالة ومقالة عاصمة أفريقيا ومقالة دي بقول إلى 10 مليون أو توبيانا عاصمة دي مقالة مدح واحد ويان أفريقيا مقالة مدح واحد تاهي مقالة وحان كتاهي مقالة ومقالة قرح بدن أركتو هذا مقالة إنك هذا أنا ودين كسون دلال كلام عرق ودن كانجا عاصمة نو قرح بدن ويان ومقالة سومالي aad ay u imaato inta hadda u dambeysay mudooyinka hadda u dambeeyay library-ga waa ka library-gi dinaayay magaalada oo hadda ra'iisul furay oo cusub yahay ra'iisul abi waa furay ka wadada Churchill baa lahaayo Afrika ku yaalo magaalada Addis Ababa dad badan oo Soomaali ah waxay ugu dhawaaqaan marka dhawaqa magaca magaalada la sheegayo Addis Ababa. waa magaalo la yaab leh oo halkan waxa badi ku yaala safaaradaha dalalka adduunka oo dhan xarumo door ah oo jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay leedahay iyadoo lagu tilmaamo caasimadda qaaradda Afrika. maxaa yeelay halkan waxa ku yaala xarunta midowga Afrika ee African Union.